السلام عليكم عشركينا maanta waxaa simultaneous mar walba waxaa haysataa horta inaad ogaatid waaye haddaa haysatid laba wax aan ogeyn kasoo qaad x iyo y okay labadooda ma ogid mar walba waa inaad haysatid laba equation saa u xalidid haddaa haysatid kasoo qaad haddaad dhahdid x lagu daraya lamidta hal ma ogaa kartid x waxay taa ma ogaa kartid y waxay taana ma ogaa kartid laakiin haddaa lignin kale ku dartid aad dhahdid laba x laga jaraya oo lamida labo okay labadooda aa isticmaale kan waxaa waa equationka koowaad kanna waa equationka labaad marka waa xaline bala isku dayna inaa xalin kan x lagu daraya oo lamida hal laba x laga jaraya oo lamida labo okay haddii aa isticmaalo equationka koowaad haddii aa dhaha ka waran xa waxay lamid tahay hal laga jaraya macnaha ya-daa dhankaas kala geeye equationka labaad haddaa substitution sameeyo x-ka wuxuu la mid yahay hal laga jaraya hadda xaggas geli haddaa dhaho laba meeshaa ka dhihi lahaa laba x waxaa dhaha labo hal laga jaraya oo lamida labo markaa saas dhahay waa isku dhufanaa qoyska fura waxaa labo lagu dhufta hal laga jaray labo lagu dhuftaya laga jaraya oo lamida labo marka labadana isku dara waxaa haysataa labo laga jaray saddexya oo lamida labo kana dhankan geeye saddex oo negative oya laba laga jara labo saddex negative oya waa eber saddexaa labada dhinac u qaybinaya saddex negative ada waxaa haysataa ya waxay lamid tahay eber awalna muxuu ahay definitionkeena x waxay lamid tahay hal laga jaraya mahin haddii ya eber tahay x-ka muxuu lamid noqona waa hal hadda maxaa helnay waxaa helnay ya-na waa helnay waa eber x-na waa helnay oo hal bal example kala fiirino examplekeena labaad haddii aad dhaho 1/3 oo x lagu daray ya oo lamida hal loo qabiyo afar waa equationkeena koowaad equationka labaad 1/5 oo x laga jaray laba oo ya oo lamida 1/2 saa ugu shaqaynayna equationkeena koowaad waa kana kan labaadna waa kana saa ugu shaqaynaynaa labadooda marka okay waa horta inaa mid xalisid hadda ya-daa noo fudud inaa xalino because ya-da waxna kuma dhuftano waa keligeeda taagata marka haddaa x-ka dhankaas u wareejiyo haddaa dhaho equationka koowaad hal haddaa dhaho ya lamid tahay hal loo qabiyo afar laga jara hal loo qabiyo saddex oo x ya-da halaasay lamid tahay marka meesha ya ay ku qorantaha substitutional sameynaa waxaa gelinaa halaas saa x u helo okay equationka labaad wuxuu isku bedelaa hal loo qaybiyo shan oo x laga jara labo hal loo qaybiyo afar laga jara hal loo qaybiyo saddex x oo lamida
hal loo qaybiyey labo markaasaa sameeyo waa isku dhudhufanaa xalina negative labo loo qaybiyey afar negative iyo negative waa positive labo loo qaybiyey saddex oo x ah oo lamid ah hal loo qaybiyey labo okay x iyo x isku dareynaa kana dhankaas wixii x hal meel lagu daray labo loo qaybiyey saddex oo x ah oo lamid ah hal loo qaybiyey labo lagu daray labo loo qaybiyey afar okay marka fractionkan saa u xaline dugsiga hoose dhexe saa ugu baratay waa inaa heshid tiro isku mid ah oo hoos marka hadda inta saddex ku dhufto kor iyo saddexa ku dhuftay intana shan marka waxay noqon saddex loo qaybiyey 15x lagu daray 10 loo qaybiyey 15x oo lamid ah laba loo qaybiyey afar waa hal loo qaybiyo labo ama iska dhic intaa labo waxa waayay afar loo qaybiyey afar noqon laba laba ku dar afar okay waa isku daraa labadan 3x iyo waxaa haystaa 23x loo qaybiyey 25 oo lamid ah hal 15 oo labada dhinac ku dhufana 25 haddaa labada dhinac ku dhufto waxaa haystaa 23 oo x ah oo lamid ah 25 waa boobsiinaya wax yar 23 u qaybinaya labada dhinac 23 marka x-ka muxuu la mid noqon karaa 15 loo qaybiyey 23 waa x-ka ya-dana maxaa dhahnay ya-dana waxaa dhahnaa hal loo qaybiyey afar laga jaray ya-da saana ahayd hal loo qaybiyey afar laga jaray hal loo qaybiyey saddex x x-na waa haysanaa waa 15 loo qaybiyey 23 marka ya-da maxay isku bedeshay hal loo qaybiyey afar laga jaray hal loo qaybiyey saddex lagu dhuftay 15 loo qaybiyey 23 hal loo qaybiyey afar laga jaray 15 loo qaybiyey 23 lagu dhuftay waxa waayay waa 39 labadooda markaa isku dartid anoo calculator wax yar isticmaala laga jaray 15 loo qaybiyey 39 waxaa haystaa tiro negative jawaabtu waxay noqotay laga jaray 7 loo qaybiyey 52 saasay jawaabtu noqotay marka hadda waxaa helnay x iyo waxaa helnay y marka mar walbo hadda equation noocaana aragtid haddii aana laba wax ogeyn waa inaan laba equation haysid haddaa hal wax ogeyn waa hal equation haysid marka mar walba saas laba equation oo macnaha example ka bixiyey waxaan dhahay labadan wax hel laakiin haddaa dhihi lahay haddii alcala noqon lahayd saddex wax intana aan ku dari lahay plus z ma heli lahayn zka ma heli lahayn sababtay tahay waa saddex wax aan oge iyo laba equation marka mar walba inay isku dheela tirnaadaan laba waxaan ogeyn laba equation saddex wax haddaan ogeyn waa saddex equation marka aan ku joojinaynaa video wabillahi tawfiiq